diinta horta wixii dardaaran ah iyo wixii tacadiid loo geystay iyo wixii dib maxaan ku raada haweenka Soomaaliyeed loo geystay maamooyinka iga horeeyay baa sheegay aniga laba arimood kaliya rabaa inaan hadalkii ku soo koobo marka hore horta hadaan nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed anaga horta sharci dejiyaal ma nihiin sharci fuliyaal baan hubka ku howlgalna waa hubka maxaan ku raada baarlamaanka uu soo ansixiyo madaxweyne uu saxiixo anaga bulshada maxaan ku raada sharaftooda xuquuqdooda ku dhoorna anagu hadaan nahay haweenka ku jira ciidamada booliiska hubkeen qaar kamid ah naga maqan waayo sharci aan rabnaa ku difaacno haweenkii Soomaaliyeed aan ku soo xirxirno ragga iyo haweenka tacdiida u geysto sababtoo tacdiidaha loo geysto haweenka waxaa jiro haween oo waxa xataa naftirkeeda ka shaqeeyo anaga naftirkeena xataa runtii in la isku sheegaa loo baahan yahay anagu waxa soo xirno hooyooyin iyo eedooyin oo gabdhihii iyaga ee dhaleen maxaan ku raada dhiirigelinayo inay jirkooda iibsadaan ama daroogo cunaan ama maxaan ku raada rag u tagaan oo beesay ka qaataan marka tacdiidaha loo geysto haweenka iyo caruurta kuma eka kaliya ragga balse sharciga anaga ku howlgali lahayn gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa anagoo garabkaaga nahay ina xoog saartay sidii sharcigaas loo meel marin lahaa oo lagu dhoori lahaa sharafta haweenka Soomaaliyeed iyo caruurtoodaba qodobka labaad aan rabo inaan ka hadalno waxa weeyaan anagoo hadda maanta heysano gudoomiye ku xogeen oo heysano tali xigeen oo heysano wasiiro oo heysano xildhibaano oo heysano civil society hadii tacadiyad loo geysto gabar daciifnimadeena ka imaatay runta la rabaa moogtahay iyo anaga isku xirnaan la'aanteena runtii waxa rabaa aad iyo aad inaan ugu mahadceliyo wasiir Khadiija ana Khadiija kulmisa u bixiyay sababtoo ah ummadoo dhan isku keentay maalmahaneetu saraakiishu ila kaftamaano bilcaanima ka muuqato haweenka la boodboodo sataliyo waagi hor intay jirtay waagi hor waxaan jiray meel aan iskugu imaano dad un iskugu yeero oo maxaan ku raada shaqadana la qabtaa ma arkin oo laan gabar walbana kaliyeeda meel ku dhimanaysay iyadana mas'uuliyadda saaran mas'uuliyadii waajibaadkana si u gudato ma garanayso iyadina tacadiyad naftirkeeda loo geysanooya kuma filna markaa inaas aan dhahna kaliya gudoomiyaha heysana taliyaha heysana iyo wasiiraha heysana anaga inaas ku xirnaano ayaa la rabaa oo aan dhaxdeena maxaan ku raadana laga dhax shaqeysan oo shisheeyo ma arkin oo intuu civil society waxa dhaho dawladda dawada ka geliyo dawladda ee diido civil society intii maxaan ku raadaa iyadana cuqdad ay qaado waxaasay tabaad shisheeyaha ayaa ka shaqeeyo mar walba anaga genderka ka hadalno waxaan la dhahaa waxa u doodayeen LGBT iyo lesbian iyo balaayo joogo yaa rabbi anaga rag rabnay xal lesbian ugu doodaheena waa waalidtiin wax laga hadlaayay anaga maxaan ku raadaa u diyaaree hadaa LGBT u doodeen dalkan horta aniga ma u imaan lahayn oo Yurubtan ku barbaaran joogi lahaa LGBT iyo balaayo qurunkaas aan sanay waxyaalaan ugu soo hijrooday dalkaas ay ka mid tahay aniga inaan wax ka qabto dalkaas shaqadayma ilaaha fasaxay oo seerabaan u dhaqmaan laakiin qowmuluudnimada inay markin oo baladkeenu ku soo badatay shaki iyo inaga galin waxaas daliil ah kufsi loo geysto imase caruur oo wiilala kufsi loo geysto waxaasay tamaama maxaan ku raahdaa ma wax oo damiir iyo diinta qorayso miya hadii kuwaasay taa difaacino anagana lagu tilmaamo karo anaga ina qowmuluud asiinahayba waa wax oo maxaan ku raahdaa tacadi waxa weeyaan wax raqiis ah oo la rabo anaga inaan niyadino loogu jibiyo laakiin anaga hadaa sidaas fudud loogu jibin lahaa intaanoo haween oo madaxa ma baheli lahayn hadaan haweenka Soomaaliyeed waxa marka niga codsanayaa sidoo Ilaahay yiri wa'tasamu bihabillaah wala tafarraqu kulligeen inaas wada qabsano oo wasaaradda iyo gudoomiyaha ku daba dhagno wixii xarag u baahan ana idin joogo ii soo sheega wallahi billahi taala hadda waxa laga dhawaajiyay kiis oo gabar maxaan ku raahdaa oo naafa wax loo geys kiiskaas aniga ma soo gaarin laakiin ay kiis uu soo gaaray hadda maanta tirakoobkii waxaan ku jirnay tacdiida loo geysay dumarka galmudug iyo gobolka Banaadir kaliya waxa soo gaaray 119 kiisas 7 kamid ah waxa loo geystay caruur dad da'dooda ka yartahay 10 iyo 20 u dhaxayso waa caruur yacni qaangaar ma waa inta anagana soo gaartay imisaan soo gaarin laakiin waxaan civil society iyo wasaaradaha iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed hadii saldhigyada ay ka shaqeyn waayeen ana idin joogo meel ay iga soo heshiina ma waynaysiin ani social media oo maxaan ku raada ka dhax shaqeystaan ee soo gaarsiiya aan isla wada shaqeyno aan dhamaanteen isgarab qabsano hadaa isgarab qabsano waxaan hubaa inaan san maxaan ku raada gabarna tacadiid loo geysan caruurtana loo tacadiid geysanin
dhib ma leh waa ogolahay haweenka waxaan rabnaa marka dhawaana waxaan haddaan nahay hogaamiyaasha haweenka Soomaaliyeed oo ka qayb galayay maxaan ku raahdaa dagaalka ka dhan al-shabaab waxaa ku dhawaaqnay howlgalkii loo bixiyay 3G oo la yiri la guri walaahe waa ilaawdeen durbo hayay soo xasuusiyana oo ilaaw bilaahe la guri ولا قوف ولا جور هل مركل يوسع عليه وقص عداي ولا جور وحاني قعد سنة ما هذا الربع أنا محنكر هذا قدومي وزير دي إلى جوجان إنا بلارينو أو نوقف والبوت عديد وجيستو دومر كالصوماليات جوري والبنا لقى صاروا قوف والبنا لقى عيريو فرتنا لقوت المامور كان مجدين ناقو كفسايا لسكو عروس qof walbo la xukumo iyo maxaan ku raahdaa garsoorayaasha waxaan u joogay gabdho xeer ilaaliyaal ah marka aan iska gacan qabsano walaalayaal ilaahay wuxuuna siiyay dhamaan hubkii loo baahnaa kaliya waxa naga maqan waa sharcigana waxaan hubaa in la soo dhicin doono maxaan ku raahdaa hadaa sharci helno anagana is gacan qabsano tacaadiyad hadii loo geyso dumarka anaga markaas ay dambiye loo rag uma arkino loo saaran kara malahan marka aan isla wada shaqeyno aan wasiiradeena gudoomiyeena ka dambeeno anaga dhaxdeena wixii maxaan ku raahdaa isfaham waay dhacay iyo wixii maxaan ku ilaa shaqada wax badan keenaysa dhaxdeena aan ku xalisano yaanaan banaankaas ay tala la tagin yaasan maxaan ku raahdaa ragga naga dhax faa'iideysanin anaga dhaxdeena aan xalino haweeney hooyo dalkaneed waxaa la yiraahdaa waa dalka hooyo waxaa difaacay hooyo waxaa u taagan waa hooyo dhamaanteen hooyo ma wadana dalkeen hooyo ma difaacan karnaa taas waa daciifsan tahay yaa akhay I'm sorry niga ma yeelin dalka hooyo ma difaacanaysin hooy rumi niga tahay waa ma sitii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh